munaasabadan ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug taas oo ahayd mid loo madlanaa isla markaana la isku darayay xildhibaanada Galmudug iyo sidoo kale ahlu sunna qaybna ka ah heshiiskii hore ay u gaareen iyadoona xildhibaanada la isku daray tiradoodu ay gaarayso labada dhinac oo kala ahaa 89 xildhibaan oo ka socotay xildhibaanada Galmudug iyo sidoo kale 89 kale oo ka socotay xildhibaanada ahlu sunna wal jamaaca wadarta guudna ay noqonayso 178 xildhibaan iyadoona madasha ay ku sugnaayeen guud ahaanba mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Galmudug sida madaxweyne ku-xigeenka madaxa golaha wasiirada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ugu horeyn munaasabada ayaa waxaa ka hadlay madaxa golaha wasiirada Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid muddo loo soo dhabar adeegayay boqolkiiba boqol galabta waxay noo tahay dabaaldegay noo tahay aanu dabaaldegayno munaasabadan qiimaha badan ee baarlamaankii mid laga dhigay ee uu galabta wada fadhiyo shaqadiisana u qabsan doono guddoonkiina hortiisa uu fadhiyo asagoo u diyaara shaqadiisa inuu guto gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir oo madasha ka hadlaya waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid taariikhi ah waxa uu sheegay in laga rabo madaxda Galmudug in ay u jihaystaan sidii loo xoreyn lahaa deegaanada ka maqan inaan Galmudug heshiin kartaa way cadaatay inta dhiman waxaan rabnaa reer Galmudug inaad gacmaha isqabsataan oo aad ogaataan markaad gacmaha isqabsataan inaan leeyahay imaan kara cadawga reer Galmudug iyo cadawga Soomaaliyeed tartan aqaan ugu dambeyn madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa bogaadiyay arrinta waxa uu xusay in baarlamaanku shaqadooda xilligan wixii ka dambeeya ay qabsan karaan aad baan maaragtay u soo dhaweynaa aad baan maaragtay u faraxsanahay galabta cid walba oo meel kastoo Soomaaliya joogto waxaan hubaa saacadaan in qofku ay faraxsay baarlamaanku ogaada waa soo isku kulli baarlamaanku isku darsan waa loo fuleeyahay berita waa loo shaqo ugu dambeyn liiska baarlamaanka la isku daray ayaa waxaa si wada jir ah u saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxa golaha wasiirada Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan hawshan oo ahayd mid ballaaran isla markaana ka soo bilaabatay heshiiskii Djibouti lagu soo gaaray iyo heerkan ugu dambeeyay oo ay soo gaartay ahayd in la isku daro labada baarlamaan ayaa intaasi waxaa soo waday isla markaana fududeynteeda qayb ka qaatay urur goboleedka IGAD Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamarab